السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي مقال عصب مقالكن waxaa markaasi aan kaga warrami doonaa oo aan markaasi ku soo bandhigi doonaa application aad iyo aad u cajiiba application-kani waxa uu ka caawinayaa markaasi inaad barato luqadda English-ka si markaasi directly aad u baranayso oo toos ah markaa ayaad u baranaysaa application kale way jiraan oo laga barto luqadan iyo meelo kale fara badan way jiraan platforms kale oo laga barto balse laakiin application-kani waxa uu kaga duwan yahay application-nada kale waxa aad qaadanaysaa live classes si toos ah ayaa lagu barayaa oo markaasi aad u dhiganayso luqadda English-ka practices bay leedahay dad caadi ah ayaa markaasi aad kula sheekaysanaysaa group calls ayuu leeyahay oo dad markaasi aad dhexgal ku sameynaysaa si markaasi aad luqadaas u fahanto oo aad u barato marka application-kan Play Store-ka ayaad ka helaysaa Play Store-ka markaad soo gasho xaggan sare marka waxaad ku qori doontaa hello markaad ku qorto kan ayaa markaasi ku soo bixi doona application-kan ayaa ku soo bixi doona anigu hadda uu install gareysan soo dejiso kadibna open the offer okay hadda open baan odhanayaa markaan furo application-kan waxa markaasi ugu soo bixi doonaa kan application-ku qaabkan ayuu kugu soo baxaya marka qaybtan hore waxa aad markaasi iska diiwaan gelinaysaa saddexdan option ee ku soo saaray inaad si toos ah lambarkaaga ama email-kaaga iska diiwaan geliso inaad Facebook-gaaga ku xiriirsato iyo inaad Gmail-kaaga ku xiriirsato the future of language learning ayaa ku qoran hadda markaan waxaan sameyn doonaa hore waan isticmaalay marka mid cusub ayaan sameyn doonaa si markaan isku leegna bal qaabka markaasi aad isku diiwaan gelin karto okay Google ayaan dooranayaa Google ayaan saa ugu dhulfanayaa halkan marka waxa uu ku soo saari doonaa Gmail-ada kugu jira mid kamid ah ayaan markaasi dooran doonaa oo markaasi kuwa halkan igu jira kamid ah okay hadda midkan ayaan ku dhulfanayaa marka haddii uu ku diido ama qaabkan uu ku soo dhigo oo ku ogolaan waayo marka waxa aad sameyn doontaa in aad qaab kale aad isku diiwaan geliso okay kan hore ayaa markaasi aan ugu isticmaalay marka waxaan sameyn doonaa waan reset gareynayaa application-kan reset ayaa markaasi aan ku sameynayaa qaybta markaan saa ugu dhufto waxa uu geenayaa qaybta setting-ka storage-kan daawan doonaa clear data baan oranayaa kadibna sidii hore markaasi ku soo noqonayaa kadibna dib ayaan u soo furayaa application-kii markaasi aan sharaxaynay okay mar labaad ayaan soo furay mar labaad ayaan haddana dooranayaa continue with Google si markaasi Gmail kale ama markaasi ciwaan hore aanan ugu sameysanin aan ugu sameysano oo si markaasi aan iskula aragna markaa registration-ka full-ka ah markaasi si buuxda aad markaasi isku diiwaan geliso mid kale ayaan dooranayaaba Gmail-adan igu jira meesha okay Gmail-ka marka aad doorato qaabkan ayuu markaasi ku soo saarayaa inaad markaasi aad allow tirada ama aad access u siiso in Gmail-kaas oo ay markaasi awood yeesho inuu isticmaalo application-kan allow baan odhanayaa allow markaan idhaahdo waxa uu ii gudagalayaa oo ii soo dhigayaa qaybtii markaasi registration-ka ama qaybtii isdiiwaangelinta ayuu markaasi ii soo dhigayaa xogaa baad yar sugi doontaa marka inta uu access gareynayo Gmail-ka aad ku xidhay okay qaabkan ayuu markaa igu soo dhigaya welcome to hello where are you We're so happy you're here. okay Our goal is to help continue ayaan leeyahay people learn English for many important reasons. Why are you learning English? sababta aad u baranaysaa waa maxay job opportunities travel or hub school ama noocyada kale hadba midkii aad jeclaato ama aad rabto inaad u barato ay dooranaysaa haddana waxaan dooranayaa travel and hub ayaan dooranayaa kadibna Great. Good to know. waxa uu ku weydiinayaa What area do you want to intan hoosta ku qoran midkee doonaysa inaad xoogga saarto ku hadalka dhageysiga qorista iyo akhrinta inta midka aad si awood loo barato ayaa lagu weydiinayaa inta badan markaasi hadalka ayaan aad u rajeynaa speaking ayaan dooranayaa continue ayaan leeyahay continue marka dhahdo halkan waxa markaasi ku weydiinayaa qaabka aad practice-ka u qaadanayso in aad live classes qaadato si toos ah markaas aad practice u sameyso in private lessons lagu siiyo casharro adiga ku gooniya group calls aad sameyso and one on one call in markaasi ala shakhsi aad call-ka u sameyn karto live classes baan dooranayaa si markaasi toos ah aan u barto casharrada
halkan waxa markaas soo hadana ku weydiinayaa Would you like to practice? how often will you like to practice Remember, practice makes mar walba better. ama markaas inta badan sidaad jeclaan lahayd inaad u practice garayso waxa aad baranayso haddii lazy ay tahay in weekly one time aad samayso periodic haddii ay tahay inaad 3 or 4 times week aad samayso regular and serious oo 60 minutes ama 30 minutes a day toddobaadkii okay regular baan iska dooranaya 30 minutes maalinkii aan practice gareeyo kadibna continue baan leeyahay locationka ayuu weydiinayaa halkan ayaan markaasi ka dooranayaa Soomaaliya okay waatan Soomaaliya dooranaya continue ayaan leeyahay haddaad meel kale joogtaan locationka aad joogtaa ay dooran doonto kadibna waxaan dooranayaa luqadda markaasi anigu aan native-ka ku hay aan u dhashay ama aan ku hadlayo ayaan dooranayaa markaas Soomaali ayaan dooran doonaa maadaama luqadda Soomaaliga aan ku hadlayo Soomaali ayaan dooran continue baan leeyahay haddana pick a few teachers to follow macallimiintan qaar kamid ah markaasi follow garayso si aad u hesho mawduucyadooda ama waxa markaasi ay soo gudbinayaan okay qaar kamid ah dooran doonaa qaarna waan iska reebi doonaa kanoo kala adiga reeb intaas ayaan ku deysan doonaa continue baan leeyahay now you are here to get started okay Now you're ready to get started. It's time to get started baan leeyahay haddii uu markaasi location ku weydiiyo inta badan nana variable then iska dha let's go wad leedahay markaa wad guda gashay iskuulka ama privatekii ama meeshii aad ku baranaysay luqadda Englishka okay halkan waxaa ku jira mawduucyo aad iyo aad u xasaasiya dad live ku jira dad markaasi macallimiin casharan dhigaya arday waxa soo dhan baa ku jira imika mid kamid ah haddii aan doorto tusaale ahaan mid kamid aan dooranayaa kanba haddii aan eego English grammar kan haddii aan eegno qaabkan ayuu u dhigaya macallinkani live ayuu ku jiraa No worries, you can skip the second one. We can discuss Okay. whatever year waa class live way country. arday fara badan markaas ay dhiganayso su'aalo toos u weydiinaya adiguna live good la gali kartaa su'aalaha waa lagu weydiinaya casharada waxaad fahmi weydo si toos ah aad weydiinaysaa laakiin ugu horeyn marka hore waxa wanaagsan ama markaasi required ah in luqadda Englishka aad markaasi xogay ka taqaano si markaasi aad u fahanto waxa lagu hadlay maadaama uusan Soomaali ku hadlayn ama dadkan aan Soomaali kugu dhigayn okay casharadan saas ay dooran doontaa haddii aad macallimiinta doonayso inaad lessonska ama casharada bixinayaan dhageysato qaybtan teacherska ayaa dooranaysaa halkan ayuu kaaga soo saaraya macallimiintu casharada ay bixinayaan tusaale ahaan business Englishkan haddii aan ku dhufto waa markaasi macallinka maaliga ku qoran ay si toos soo bixinaysaa arday baa dhageysanaysa casharkan si live ah ayaa markaasi ay u bixinaysaa aduguna markaasi waad la dhageysan doontaa su'aalaha toos baa lagu weydiin doonaa sidoo kale waxaa jira qaybtan waxa aad rabto ayaad ka dhex raadinaysaa galaasyada meelaha markaasi ama barafada meelaha lagu dhiganayo dadyogu meelaha isku imaanayaan aad halkan ka raadinaysaa qaybtan haddii aad booking garaysanayso ama dadyo macallimiin gaar ah aad samaysanayso inta lacag bixiso si toos ah ay markaasi ku dhigaan kaliya ay ku dhigaan si barafadaan ama si classes labadaba qaybtan waa qaybta SMS-ka message-da ama si toos ah ay doolaali karto macallinka oo markaasi aad waxaad rabto weydiin karto mid ugu sii cajiibsanaya qaybtan sare ay ku qoran tahay practice English real time ay ku qoran tahay instant match haddii aan iraahdo waxa uu soo dhigayaa markaasi instant match rules sharciyada halkan mar walba ku qoran always be polite and respectful no spam or offensive behavior focus on learning English speak and have fun sharciyadan baad ku dhaqmaysaa okay garage baan odhanayaa si toos ah markaasi qof igu xiriirinaya ayuu raadinaya allow baan leeyahay dan allow baan leeyahay aniga waa kan magacayga ku qoran xagga barkhad baa igu qoran midkan ayuu soo qabtay dan accept iraado haddii uu diyaar yahayna wuu soo gelinaya hadduu diyaar ahayna wuu dhaafinaya xogaabad markaasi aad sugaysaa kaasi waa mashquul hadan saara kolba midkii ku soo galay baad markaasi accept oran doontaa hadda midkaas uu ogolaaday Jahangir ayaa ku qoran koolka uu qabtay si toos ah loo hadlo ayuu hadda u baahan yahay I'm here, how are you? saas ayaad ula hali kartaa how is lesson ayalku ku qoraya casharkaaga markaasi qaabka aad fahantay baad markaasi submit garan doontaa skip baan leeyahay okay baan leeyahay garage baan leeyahay si toos ah ayaad uga baranaysaa qaybtan ardayda ayaa iska leh qaybtan markaasi wixii aad follow gareysay ayaa iska leh qaybtan beginnerka dadka bilowga ah ayaa iska leh
intermediate dadka dhexdhexaadka ba iskale advanced na waxa iskale markaasi expertska dadka ku markaasi Englishka si xooga u yaqaan marka inta badan marka waxa muhiim ah oo halkan lagaga baahan yahay waxa aad iyo aad u muhiim ah in markaasi profile-kaaga aad ka dhigto mid real ah oo markaasi qofka aad la xiriiraysa si markaasi uu ku barto edit profile baad sameyn doontaa username ayaa sameysan doontaa magacaaga oo dhameystiran ayaad halkan markaasi ku qoraysaa magacaaga oo dhameystiran baad halkan ku qori okay kadibna qaybtan biography-gaaga waxaad ku qori doontaa yani waxyaabaha hobbigaada interests-kaaga waxyaabaha markaasi aad ka u taqaano ama waxaad Englishka ku doorato inaad barato ayaad halkan ku qori doontaa location-kaaga native language-kaaga markaasi gender-kaaga inta halkan ayaad markaasi ku qori doontaa sawirkaaga haddaad rabto saaran kartaa ama sawir kale ayaad saaran kartaa kadibna save baad leedahay markaad save tiraahdo haddii imika halkan uu leeyahay kama sax waxaan sameyn doonaa intan ayaa iskaga qoran safe baan leeyahay isagana waxaan ka masaxi doonaa xabadan safe baan oran iska dhaaf adigu kalba sidii kugu qaata waa sameyn doontaa hadda marka uu sax kugu noqdo location-kaaga hadda waa sax markaasi profile-kaagu waa dhameystiran yahay find teachers haddii aad ku dhufato halkan macallimiin aad wax ka barato ayaad helaysaa oo book markaasi aad booking garaysato lessons-ka ay bixinayaan ama casharada ay bixinayaan si toos ah markaasi uga baran kartaa si live ana markaasi adiga laftaadu waad u gali kartaa haddii aad rabto inaad macallinimo markaasi aad wax ku barto go live haddii aan iraahdo waxaan u sameynayaa qaybtan markaa waxaan u sameynayaa inaan title geliyo sidoo kale in aan markaasi aan terminal u sameeyo public ama aan only in wax aan ka dhigo beginner or advanced or intermediate aan ka dhigo audio quizzes-ka waxba markaasi aan saxo in live-ka gelin doona markaasi oo markaasi ka dhigaysa casharada aad bixinayso waa application aad iyo aad u tayo wanaagsan telefonkaaga aad kaga shubanaysaa si toos ah markaasi luqadda uga baran kartaa aad markaasi aad iyo aad ka jeceshay markaasi Englishka waa application tayadiisu ay sareyso sin markaasi qurux badanna aad ugu baran karayso Englishka oo markaasi advanced aad ku noqon karayso waxaan rajeynayaa in application-kan ka faa'iideysan doonto application-na kalena way jiraan markaasi luqado kale laga barto iyaga laftooda markaasi waan soo gudbin doonaa waan soo bandhigi doonaa application-kan application-nada kale waxa uu kaga duwan yahay features-ka faraha badan ee markaasi uu leeyahay inaad live classes qaadato inaad adigu si toos ah markaasi qof u garaacdo si aad luqadda Englishka practice ugu sameyso in markaasi macallimiin aad doorato inaad adigu macallin ka noqon karto in waxyaabahaas oo dhan ay markaasi application-nada kale dheer yahay waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doonto luqadan aad markaasi si wanaagsan aad uga baran doonto tan iyo muuqaalka dambe intaan isugu iman doono casharo xiisalan markaasi aan markaasi soo gelin doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum nabaday